xubnaha ololaha cidhibtirka qabyaalada ayaa maanta agab ciyaareed oo dhameystiran soo gaarsiiyay kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan magaalada Beligubadle ee xarunta gobolka Hawd kuwaas oo tiro ahaantoodu dhan tahay 6 kooxood. Munaasabad kooban oo loo qabtay kala gudoomashada qalabkaasi ayaa waxaa lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee magaaladaas, waxaana ugu horeyn hadallo mahadnaqa iyo soo dhaweyn iskugu jira ka soo jeediyay isku duwaha wasarada dhalinyarada iyo ciyaraha ee gobolka Hawd Ciise Jaamac iyo Khalid Maxamed Cali oo ka mid ah ciyaartoyga degmada Beligubadle. Runtii aan oran karo waa urur u taagan sidii dhalinyarada ay uga dhiirigelin lahaayeen qabyaalada afa ku noqotay waddankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadday noqoto qalab, hadday noqoto wacyigelin iyo hadday noqoto hawlo kale oo ay dhalinyaradu u baahan tahayba har iyo habeen hiliyahooba u huraya. Noo ka hadlaya afka dhalinyarada gobolka Hawd gaar ahaan dhalinyarada sportiga waxaan halkan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha ururka la dagaalanka qabyaalada kaasoo noo keenay sadarkaysa qalab sporti oo runtii dhameystiran. Markasta dhalinyarada sporti waxaan ku tilmaami karnaa sheyga kaliya inay soo dhex galin qabyaaladu kaasoo lagu ciyaarin reer iyo qabiil kaliya lagu ciyaarin xirfadiisa waxa uu waxaan leenahay gudoomiyaha insha Allah waxaan ka filanaynaa waxaan iyo in kale oo ka badan. sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubnaha ay kamid ahaayeen xogayaha dawladda hoose degmada Beligubadle, isku duwaha wasarada deegaanka ee gobolka Hawd, dhalinyaro waxgarada waxaana dhamaantood si kal iyo laba ugu mahadnaqeen xubnaha ku bahoobay ololaha cidhibtirka qabyaalada ee uu masuulka ka yahay Cabdikariin Axmed Mooge. qabyaaladu waa wax dalka ragaadiyay oo waxa sidan u gartay dalka waan uga mahadnaqayaa waxaanan ku boorin lahaa inuu halka ka sii wado ilaahay dub ma celiye waan ku soo dhaweynayaa anigoo maayarkii iyo ku-xigeenkii oo maanta ka jooga aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal. run ahaantii markaan maqlay ururka magaciisa aad baan ugu farxay waayo dhalinyarta aad buu dhiirigelinayaa. gudoomiyahana waxaan leeyahay gudoomiye Cabdikariin qalabkan aad 6 kooxood keentay aad baan kaaga mahadnaqaynaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Hawd iyo maamulkaba. idinkana waxaa la idinka rabaa in aad ka hawl gashaan hawsha uu Cabdikariin inoo bilaabay ururkoodu ee qabyaalada inay meesha ka baxdo wixii qabyaalada loo oran jiray oo aan noqotaan dad ku saaxiiba kubadda, dad ku saaxiiba cilmiga, dad ku saaxiiba oo wixii qoloqolada ahaa meeshii ka baxaan iyaduna. waxaan ku leenahay tiimamka iyo kooxaha ka jira gobolka iyo degmadaba inta way ka badan yihiin insha Allah intan ka badan oo ka rajaynaa. gabagabadii waxaa halkaasi hadallo dhiirigelinayo waana ka jeediyay gudoomiyaha ololaha cidhibtirka qabyaalada Cabdikariin Axmed Mooge, waxaanu sidoo kale faahfaahin ka bixiyay ujeedada uu daaran yahay qalabkan ay soo gaarsiiyeen ciyaartoyga degmada Beligubadle. waxa weeyaan udaynaanu xasuusanay baa muhiim ah oo aanu isleenahay malaa halkaas waa halkii ugu mudan fariinta la gaarsiiyo. cidda aanu dooraynayna waxay noqotay dhalinyaro markay noqotayna fariinta in qabyaalada aad iska deysaan oo faramarniya haddaan idin la iman lahayn waxa laga yaabaa inaan samayn lahayn. marka waxaanu isnidhi qofka dhalinyarada ah ee ka waaninaysaan inuu qabyaalada iska daayo ugu yaraan kubaddu ku ciyaaray ha helo. kubaddan xigmadda ka dambaysana waxa weeye inay isu keento laba qof walaalayso. 2 kooxood ku wada ciyaarana 24 qof ay ku walaaloobaan. Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga ah Cable TV xarunta gobolka Hawd Beligubadle.